بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى السلام يا دمان شعب كي دقيسان يدري دبدبا رير خاتمو أما رير SSC نبسو جعلي هاي وحان مانتا دينا صوحي لي وحان لماذا عشاء قدام بيسيار كيني اسمادي الباهنتقوى وينا سيدا قراد شاما قراد عليه iyo garaad Salaamaan garaad Maxamed oo nala jooga wadanka Imaaraadka garaad Salaamaan garaad Maxamed yaan waxaan maanta hadaan nahay jaariyada anoo ah Rashiid Iriye Faraha isla markaana ah afayeenka khaatimo ee wadanka Imaaraadka waxaan ummadda ku dhaqan gobolada sidii dibadba u sheegayaa oo aan u soo jeedinayaa inaanu inoogu dhan tahay oo aanu taageersanahay baaqi garaad Salaamaan garaad Maxamed uu ka soo saaray wadanka Imaaraadka ee ku saabsanaa in laga hortago oo wadajir looga hortago dhulbaanta dalka dibadba uu ka hortago uu ka qayb qaato dhulboobka ay wadaan beeshaas dhexe aynu dariska nahay ee Ilaahay boqorada nagu abuuray iyadoo aad arkayso garaadadii ugu waaweynaa sida garaad Salaamaan garaad Maxamed sida uu cadeeyay marar badan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay hadalka kalsoonida leh ee isagoo waliba garaad Salaamaan garaad Maxamed ku jira dhakhtar 8-7 bilood halkan ku xanuunsanaya uu wafakarayo aayaha dadka uu garaadka u yahay ee belweynta dhulbaahante dariya dibadba uu wafakarayo mustaqbalkooda uu hadiyo goor u soo taagan yahay iyadoo aan ogeyn shirkii jiraa'idii kaga horeeyay oo uu kaga hadlay arinta diiwaan gelinta ee maamulka Soomaaliland ay wadaan dhulka gobolada SSC ay ka wadaan isla markaana tan uu ka dhigay wareegii labada ay tahay oo ay tahay shirka jaraa'id ku qabtay aanti dhawey wadanka Imaaraadka ee kugu hadlayay dhulboobka magaalooyinka tuulooyinkaas uu garaadku uu noo sheegay arrin dhulbaahante waayo garaadku mas'uuliyadiisu waxay tahay inuu difaacay uu banaanka soo dhigay isagoo awal baan ogeyn hadana waxa noo cadaatay isagoo maanta waliba dhakhtar ku jira inuu ka fekero mustaqbalka dadkiisa dhulkiisa iyo deegaanka dhulbaanta guud ahaan arintana waan ku raacsanahay waana soo dhaweynaa waana in loo hogaansada awaamirta ay garaadadeena xilkaska ah ee sida garaad Jaama garaad Cali garaad Salaamaan garaad Maxamed garaad Mashqare garaad ninka la yiraahdo Sudan Saciid Ismaan oo waas faarax dheer oo 3-4 oo aan sheegay garaadada ilaahay hadda kula heshiid ahaan oo aqoonsanahay inay u taagan yihiin midnimada beesha iyo hawsha beesha sidaa daradeed waxaan isla marnabaad aan soo dhaweeynaa garaad Jaama garaad Cali hadaladii uu ku taageerayay hadalkii ka soo yeeray garaad Salaamaan garaad Maxamed aad iyo aad baan ugu diirsanay aad iyo aad baan soo dhaweynay aad iyo aad baadna waa ugu faraxsanahay shacbiga dhulbaahante meel kasta oo joogana waxaan ka codsanayaa oo aan marti uga nahay sidii looga qayb galay markii maamulkaas Somaliland iyo beerihiisu ay ku soo weerareen gobolada cayn meelo kamid ah sida Kalshaale oo laga qayb qaatay dhammaan dhulbaahante dal iyo dibadba ay ka qayb qaateen difaaca dadkaas horarka ee soo weeraray dhulka deegaanka gobolada SSC soo weeraray sidii dagaalka Kalshaale looga qayb qaatay baan doonaynaa maanta in laga qayb qaato dagaalkan laga wado dhulbursiga laga wado nugaasha sidaa daraadeedna waxaan jecelnahay haysoorna waa hadaladii Rashiide maanta haddii labadii garaad ee ugu waaweynaa ay hadleen oo ay baaq soo jeediyeen dee maanta wax noo dhiban ma jirto hadalada garaadadana inay cidla ku dhicin yaan ummadda gobolada SSC ka codsanaya inay noqon hadalla ay noqdaan hadalla miisaan leh hadalla kafiirsi leh hadalla lagu tudaysha leh hadalla gubaaba leh hadalla u dhigma hadaladii uu ku hadli jiray uu taageerada uu shacbigiisa ugu jeedin jiray baaqyadii uu ugu jeedin jiray garaad Salaamaan kulay anigu waxaan ku matalaa ama ay tahayba garaad hadaladii garaadku inuu ka ay la mid tahay hadaladii Erdogan uu jeediyay shacbiga Turkiga uu jeediyay la ogaay waxay ka sameeyeen wadanka Turkiga hadaladaas oo kale ayaa maanta nala gudbay in kacdoon shacab aynu samayno dal iyo dibadba ka hortagno
nimankaa dhulkeeni nagu haysta, nimankaa dadkeeni deegaanka nagu haysta, nimankaas beesha dhexe dhulbalsiga ka wada nugaal iyo hawdba ha laga horto garaadadan hadalkooda hala maqan aanu leenahay. waanu soo dhaweynaynaa, waanu ku raacsanahay, waanu daba taaganahay. hadaladaa kasoo yeeday labadii garaad ee dhulbaanta ugu fac weynaa, ugu waaya aragsanaa, ugu aqoon badnaa, ugu dacaadsanaa, aada iyo aad baan u taageersannahay. anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda imaaraadka, hadalka garaad Saleebaan garaad Maxamed bay noogu dhan tahay, hadalka garaad Jaamac garaad Cali bay noogu dhan tahay, hadalka garaadada dhulbaanta ee u taagan midnimada dhulbaanta ee u taagan hadii goor dhulka dhulbaanta inay difaacaan kana difaacaan kuwa gartada kusoo doonanaya ayay noogu dhan tahay. shacbiga dhulbaantana ha isdifaaco, ha u dagaalamo sidii ay dhulkooda maanta la doonayo in xuduudda laga tallaabiyo sidii looga hortegi lahaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaaliyadaha dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay hadalkaa garaad Saleebaan afma iyo adinba ka geystaan, iyo hadalkaa garaad Jaamac taageerada uu taageerana aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. waanu ku faraxsanay, waanu ku taageersanahay, waanu kula shaqaynaynaa, waanu ku daba taaganahay. labadaa garaad ee hadlay ee u taagan danta ummadda dhulbaante meel kastaba ay joogaana ha jaaliyaduna ha muujiyaan, hana diyaar garoobeen si loogu hortegi lahaa nimankaa dhuldurusiga wada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada iyo aad baan idin salaamayaa.